السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدواد أفراد قرن كور أي سودة تشريع الإسلام تاس أوستي بشاروين يجد جنينهم أو إسباب برصعدا وحال بدل لنا قدي عقيدين حون أو مدي حلق أسوء أي هستي واحد لقى خطر قواها نلاش آدمها ويكمل هاين إن هبلها العصو يضنل يضل بقية عيبين كرعدو إسلام وحو مركي يقول السبب حقوق السيد مركا ويكمل تاينها تيالان كرتو waxaase isweydiin leh dadka hadda u dooro xuquuqda dumarka oo aaminsan inuu islaamku dumarka dumiyo waxa ay leeyihiin ka qaaday ama noqoto qaar ka tahay gaalo waxaan xasuusinaynaa dhibta ay soo mareen gabdhaha reer galbeedku inay maanta dhowr wadan hogaaminayaan wixii ka horeeyay kacaankii warshadaha dumarku waxay ahaayeen alaab waniga gurigiisa u dhigto oo sidii doona uu ka yeelan karo kacaankii warshadaha markii Faransiis ka bilaabay waxa loo baahnaaday rag badan oo ka shaqeeya warshadaha iyo beeraha si loo saddex jibaaro wax soo saarka meesh ka baxay shaqaale hoosaad badan kolkaas ayaa la yiri dumarku shaqooyinkaas galaan markaas waxa biloomay kacaankii dumarka ee loo yaqaanay feminist oo ujeedadiisuna ahaa inay dumarku yeeshaan xuquuqan soo socda in ay yeelato hanti u gaar ah in ay shaqayso karto in ay wax dooran karto laana dooran karo iyada inay xorriyad hesho oo marka dadku guri ka baxdo marka dadkuna ay soo gasho kacaankaas markii la sameeyay wuxuu xaqiijiyay guul weyn oo dhammaan go'aamanada ay soo jeediyeen way dhaboobeen balse waxa ka dhashay natiijooyin kale oo aanay marnaba Yurub finaanayn waxa faraha ka baxay xanaanintii la xanaanayay ubadka maadaama aabihii iyo hooyadii ay shaqada aadayaan waxa batay furitaankii maadaama dumarkii xorriyad loo siiyay inay waxna furaan waxna guursadaan waxa badatay carruurta ku dhalata bilaa meher diraasad la sameeyay 2018 ayaa lagu ogaaday in carruurta ku dhalata Mareykanka ama Yurub boqolkiiba 49 ku dhasheen bilaa meher iyagoo boqolkiiba 30 aanay garaneyn hooyadood iyo aabahood waxa burburtay qiyamkii iyo akhlaaqdii ay lahaayeen gaal iyo muslimba dilkii iyo dhicii ayaa batay maadaama meesha ay ka maqan tahay barbaarintii hooyadu oo wiilka hadaan hooyadu soo barbaarin si allaali soo doono ay noqonayaan dhinaca kale waxa muuqata in ay Yurub aan raali ka ahayn falxumadaas si loo dado ama loo qabo falxumadaas ayaa aad waxa loo baahanyaa xumaanta iyo xakama la'aanta iyadoo la soo marayo xurriyad waxa kale oo warbaahinta aad loo soo maraya xuquuqda dumarka ayaan ilaalinaynaa iyadoo lagu soo gabanayo xuquuqul insaanka intaas ay maanta barnaamijkeena ugu gagayay inta ku kulmano barnaamij samida waxa naga tagnaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamza Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh